بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داوديال قodobada wararka TV caaw idin haya waxa kamida xukuumadda Soomaaliya oo dardargelinaysa qorshe sida laga soo saarayo Soomaaliya xog cusub oo laga helay in Daesh ay qoranayaan dagaalyahano u dagaalama Kenya oo la sheegay in lagu adkaan doono dagaalka ay kula jirto Soomaaliya dawladda Qatar oo faahfaahin ka bixisay sirta ka dambeysay in wadamada qaliijka ay culays saaraan Soomaaliya maxaa ka jira in qaramada midoobay Soomaaliya gelisay xaalad qatar ah wararka dibadda wararka TV caaw idin haya waxa kamida Sacuudiga oo aaminsan in ra'iisul wasaaraha Pakistan uu ihaaneystay boqor Salman iyo Imaaraadka Carabta oo la ogaaday inay ka dambeeyeen heshiis lagu boobay dhulka Falastiin daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaashana ku xiran barta YouTube-ka fadlan subscribe barteena si aad u heshid warar iyo warbixino quseeya Soomaaliya iyo caalamka xukuumadda Soomaaliya ayaa dardargelinaysa qorshe sida looga soo saarayo Soomaaliya xukuumadda uu hogaamiye ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sii xoojisay olole ku aadan qorshaha soo saarista shidaalka Soomaaliya kadib markii dhawaan ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya qorshahan ayaa ka bilowday website-ka shirkadda Spectrum oo dhawaan hawada soo galay ka lagu soo bandhigay xogaha shidaalka iyadoo lagu daabacay ansixinta golaha baarlamaanka ee sharciga batroolka Soomaaliya website-kan cusub ayaa loo sameeyay jadwalka tartan loo galayo ku guuleysiga soo saarista shidaalka waxaana la shaacin doonaa 9 December ee sanadkan cidda ku guuleysatay iyadoo lagu soo bandhigi doono website-ka loo sameeyay arrimaha shidaalka iyo xogtiisa wasaaradda batroolka iyo macdanta dawladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhawaan la qaban doono laba shir oo lagu soo bandhigayo xogta batroolka Soomaaliya kuwa ka kala dhici doona magaalooyinka Istanbul ee dalka Turkiga iyo magaalada Hudson ee wadanka Mareykanka labada shir ayaa waxa ka qayb gali doona shirkado waaweyn oo shidaalka baara oo laga leeyahay Aasiya iyo Mareykanka shirarkan ayaa markii ugu horeysay lagu bixin doona qandaraasyada shidaalka Soomaaliya gaar ahaan goobaha sahanka laga sameeyay ee la soo bandhigay xogahooda waxaana shatiga ama qandaraaska la bixin doona uu yahay goobaha horey looga sahmiyay shidaalka ee ku teedsan dhulka badda iyo inta u dhaxaysa Kismaayo ilaa iyo gobolka Mudug inkastoo dawladda Soomaaliya ay dardargelinayso ololaha la xiriira bixinta qandaraasyada shidaal soo saarista oo tartan loo galayo ayaa haddana waxa jira in maamul goboleedyada ay ka soo horjeedaan sharciga shidaalka oo ay dhawaan ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya waxaana si aad ah isha lagu hayaa shirarka ka dhici doona Turkiga iyo Mareykanka ee ujeedadiisu ugu weyn uu yahay in lagu soo bandhigo xogta batroolka lana bilaabi doono in shirkado waaweyn oo shidaalka baara ay tartan u gali doonaan bishii Febraayo ee sanadkan ay ahayd markii dawladda Soomaaliya iyo shirkadda Spectrum ay London ku soo bandhigeen sahan lagu sameeyo badda oo la sheegay goobo laga helay shidaal oo dhulka badda ah xog cusub oo la helay ayaa waxa ay sheegaysaa in kooxda Daesh ee ka dagaalanta Soomaaliya ay qoranayso dagaalyahano u dagaalama kooxda Daesh ee ka dagaalanta waqooyiga Soomaaliya ayaa si xowli ah u qoranaya dagaalyahano iyadoo ay jiraan korarka weerarada dhinaca cirka ah oo dawladda Mareykanka ay ka fulinayso Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ka oo lagu faahfaahiyay awoodda kooxda tan iyo bishii April Africom waxay qaaday ilaa iyo 3 weerar oo dhanka cirka ah kuwa oo la beegsaday kooxda Daesh ee Soomaaliya waxaana qiyaastii weeraradaasi lagu dilay 20 dagaalyahan oo ka tirsan kooxdaasi dagaalyahanada weeraradaasi lagu dilay waxa kamid ah taliyihii labaad ee kooxda laakiin qiyaas ay sameeyeen falanqeeyaal dhanka ammaanka ayaa tirada laga dilay kooxda ku sheegay 100 ilaa iyo 200 oo dagaalyahan saraakiil ammaanka ayaa iyaguna sheegay in tirada ay intaasi ka sii badan tahay kooxda ISIS ee Soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 300 oo dagaalyahan iyadoo badankood ka howlgala waqooyiga maamulka Puntland sida uu sheegay afayeenka taliska Mareykanka ee Afrika ee Africom Samantha Reha oo ah afayeenka taliska Mareykanka ee Africom ayaa yiri inkastoo duqeynta cirka dagaalyahano badan looga laayay kooxda ISIS haddana waxay wali wadaan dadaalo ay ku qoranayaan dagaalyahano kadib markii khasaaro culus uu ka soo gaaray weerarada la beegsanaya kooxda kooxaha ku safka ah ISIS ayaa aad u yar laakiin waxay si joogto ah u joogaan Soomaaliya muddo sanado ah kooxda ayaa xoogga saarta gobolka bari ee maamulka Puntland oo maamul iskii isku maamulo kooxda ISIS aad ayay u yar tahay marka la barbar dhigo dagaalamayaasha xarakada shabaab oo gacan saar kale leh Al-Qaacida taa oo leh dagaalyahano lagu qiyaasay 5,000
oo askari kuna soo jiray hal gandheer oo ay ku afgambinayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya ilaa iyo bishii hore dhammaan weerarada Africom ee Soomaaliya wax lala egtay al-shabaab. weli kooxda ISIS waxay dhibaato ku haysaa howlgallada amniga lagu sugayo ee dalka, waxayna taasi sababtay in ciidamada Soomaaliya ee Mareykanku taageero ay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah xarakada al-shabaab. militariga Soomaaliya oo gacan ka helaya ciidamada dowladda taageera ayaa ka saaray kooxda ISIS dhul ay haysteen sida lagu sheegay war ka soo baxay Africom. warka ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in kooxda ISIS ee Soomaaliya ay ka faa'iideysato xiriirka ay la leedahay qabaa'ilka iyadoo hoggaankooduna uu saameyn ku dhex leeyihiin sidaana ku qorto xubno ka mid ah ururka. marka la eego qabaa'ilka, qayb ka mid ah dadka ayaa taageera ISIS-ta Soomaaliya kuna biira sababo badan awgood, waxaana sababahaasi ka mid ah lacag iyo in la qaato fikirka ISIS ayaa ay tiri afhayeenka u hadlay howlgalka Mareykanka ee Africom. dowladda Kenya ayaa la sheegay in lagu adkaan doono dagaalka ay kula jirto Soomaaliya. Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoon-yahan taxliiliya siyaasadda Soomaaliya kuna sugan Nairobi ayaa shaaca ka qaaday in Kenya ay tahay midda khasaaraha ugu xoogan kala kulmi doonta dagaalka siyaasadeed oo ay kula jirto Soomaaliya. waraysi uu siiyay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa Dr. Cabdiwahaab waxa uu kaga digay in haddii nacaybku uu sii socdo Kenya ay wajihi doonto khasaare dhaqaale oo aad u xoog badan. waxa uu sheegay in Soomaaliya ay tahay suuqa ugu weyn ee qaadka mirowga ee laga soo saaro Kenya iyo sidoo kale adeega duulimaadyada maadaama dhammaan diyaaradaha u duula Soomaaliya ay ka diiwaan gashan yihiin Kenya. dadka Kenya ayaa sidoo kale ah shaqaalaha ugu badan ee ajnabiga ah ee ku sugan Soomaaliya kuwa intooda badan ka shaqeeya hay'adaha caalamiga. waxa intaasi dheer in Soomaaliya ay yihiin dadka ugu badan ee maalgashada Kenya isla markaana ganacsi xoog badan ku leh Kenya, gaar ahaan xaafadda Islee ee magaalada Nairobi. ganacsigaasoo idil waxaa maamula Soomaali sida uu hadalka u dhigay. Soomaalida ayaa sidoo kale hadda ku biiray suuqa shidaalka iyo saliidda ee Kenya, halka ay maalgashadayaal badan oo Soomaali ay ku sii xoogaysanayaan ganacsiga hantida maguurtada ah ee Kenya. warbixinta Daily Nation ayaa lagu sheegay in Kenya ay suuragali karto in dhaawac dhaqaale xoog badan uu soo gaaro iyadoo ganacsiga Kenya uga yimaado Soomaaliya lagu qiyaasay $2 bilyan sanadkii, taa oo sare u qaaday qiimaha lacagta shilinka Kenya. ka sokow dhaqaalaha, waxaa Kenya sidoo kale uu dhaawac ka soo gaari doonaa weerarada kooxda al-shabaab haddii dowladda Soomaaliya ay joojiso warbixinada amniga ay la wadaagto Kenya. dowladda Qatar ayaa shaaca ka qaaday in wadamo ka tirsan dowladaha Carabta ay cadaadis xoog badan saareen dowladda Soomaaliya kadib markii dowladda Soomaaliya ay diiday in xiriirka u jirto dowladda Qatar. dowladda Qatar ayaa shaacisay sababta ka dambeysay cadaadiska saaran dowladda Soomaaliya oo saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar uu sababay in dowlado badan ay cadaadis saaraan dowladda Soomaaliya. wasiirku waxa uu sheegay in dowladaha xiriirka u jaray sanadkii 2017 dowladda Qatar ay cadaadis saareen dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay inay ka doonayeen inay Qatar xiriirka u jarto dowladda Soomaaliya. wasiirku waxa sidoo kale uu sheegay in dowladda Qatar ay ka aamustay go'aanadii ka soo baxay shirkii jaamacadda Carabta iyo kii ururka iskaashiga Islaamka ay ku yeesheen dhawaan waddanka Sacuudi Carabiya. dalalka nasaaray xayiraadda waxay ku cadaadinayaan dalalka gobolka inay inaga naga soo horjeestaan sida Soomaaliya oo loo cadaadinayo xiriirka ay nala leedahay, ayaa u yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar. dowladda Soomaaliya ayaa go'aan dhexdhexaad ka qaadatay xiisadda wadamada Khaliijka ayaa loo arkay inay u janjeerto dhanka dowladda Qatar, taa oo keentay in cadaadis badan ay kala kulanto dowladaha Khaliijka ee xiriirka u jaray dowladda Qatar. madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa marar badan isaga daba noqday dalka Qatar, waxaana weli fulin ballanqaad iyo mashaariic dowladda Qatar ay shaacisay inay ka hirgelin doonto waddanka Soomaaliya. maxaa ka jira in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay Soomaaliya geliyeen xaalad khatar ah? golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan qoraal ka soo saaray xaaladda Soomaaliya ee dhanka siyaasadda, amniga iyo xitaa waqtiga ciidamada AMISOM. waxaa sidoo kale jirtay in ay ka digeen xaalad khatar ku noqon karta nabadda iyo amniga dibna u celin karta Soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay meelna kuma sheegin in Soomaaliya iminka ku jirto xaalad khatar ah oo keeni karta in la adeegsado Chapter 7V, laakiin waxa uu leeyahay haddii sida wax loo qorsheeyay lagu guuldareysto waxa ay xaaladda nabadgelyo iyo midda amni isu bedeli kartaa
mid khatar ah oo keeni karta in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu adeegsado chapter 7v qodobkiisa ama article-kiisa 39aad. chapter v article 39 golaha ammaanka waxa uu xadidayaa jiritaanka xaalad khatar amni oo meel looga dhacay nabadda ama falgal darro ah, markaas oo ay xadidayaan cabirka go'aanada la qaadanayo sida ku qoran qodobka 41 iyo 42 oo ah ilaalinta iyo soo celinta nabadda iyo amniga caalamiga. sida waxa yiri golaha ammaanka. hadda iyadoo oo laga duulayo cutubkan aanu soo sheegnay qaramada midoobe waxa ay soo jeedinaysaa waxay ugu yeeraysaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka inay dedejiyaan horumarka ku aadan xal siyaasadeed oo waara oo ay ku jiraan heshiiska awoodda iyo dib u eegista dastuurka ku meel gaarka. 2 saameynta hay'adaha dawliga oo howshoodu tahay korjoogteynta. 3 kala saaridda mas'uuliyadaha iyo kaalinta ciidamada ammaanka, waxaana goluhu ugu yeeray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka inay qorsheeyaan amniga doorashooyinka iyagoo la kaashanaya AMISOM, UNSOS iyo UNSOM si ay u dhacdo doorasho loo dhan yahay oo nabad iyo xor iyo xalaal ah oo qof iyo codkii ah 2020-2021. golaha ammaanka sidoo kale waxa uu rajo ka qabaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ay ka wada shaqeeyaan hirgelinta saddexdaasi qodob si looga fogaado in Soomaaliya ay gasho xaalad khatar ah keeni kartana in golaha ammaanka uu u baahdo chapter 7v qodobkiisa ama article-kiisa 39aad. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayana waxaa ka mid ah dawladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan uu ihaaneystay boqorka waddanka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan. dood culus ayaa ka dhalatay sida uu ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ula macaamilay boqorka dalka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan intii lagu guda jiray xafladii kulankii ururka iskaashiga Islaamka ee ka dhacay magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama. muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Mr. Khan oo ku socda roog cagaaran si uu ula kulmo boqorka dalka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan. salaan kadib ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa la arkay isagoo si toos ah ula hadlaya turjumaankiisa halkii uu la hadli lahaa boqorka Sacuudi Carabiya oo hamaamuus ahaan ahayd in uu boqorku la hadlo. ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa la arkay isagoo ka dhaqaaqaya halkii uu boqorka kula kulmay isagoo aan sugin wax jawaab ah iyo in uu turjumaanka u fasiro hadalka uu boqorku ka dhahay, taa oo boqortooyada ku tilmaamay in ay ahayd ihaanaysi. warbixin aan la xaqiijin ayaa sheegayso in Sacuudiga dacwad heer sare ah uu u gudbiyay dawladda Pakistan taa oo ka dhan ah ra'iisul wasaare Imran Khan oo lagu eedeeyay in uu galay fal dambiyeed ka dhan ah habmaamuuska xafladii ka dhacday Maka al-Mukarrama. booqashada uu ra'iisul wasaaraha Pakistan ku tagay dalka Sacuudi Carabiya waxa ka dhashay in labada dawladood ay kala saxiixdaan heshiisyo badan oo ku kacaya ilaa 200 oo bilyan oo dollar. kulanka ay Sacuudiga qabanqaabiyeen ee ka dhacay magaalada Maka al-Mukarrama ee waddanka Sacuudi Carabiya ayaa ujeedadiisu waxa ahayd in la qalqalgeliyo dawladda Iran oo xurguf ay kala dhaxayso xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa la ogaaday inay ka dambeeyeen heshiis lagu boobay dhulka Falastiin. wargeyska New York Times ayaa kashifay in boqorka dalka Imaaraadka Carabta Boqor Mohammed bin Said uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee lahaa aragtida ah in la dejiyo xiisadda Israa'iil iyo Falastiin isagoo madaxweyne Trump ku baraarujiyay arrintaasi. wargeyska ayaa xaqiijiyay maalintii Arbacada ahayd in soo jeedinta boqorka Abu Dhabi ee keentay in madaxweyne Trump diyaariyo qorshe heshiiska Falastiin iyo Israa'iil ee la doonaya in Israa'iil lagu aqoonsado inay tahay dawlad isla markaana ay Qudus noqoto caasimadda Israa'iil halka Abu Dis laga dhigi doono caasimadda Falastiin taa oo lagu tilmaamay inay tahay boob lagu sameeyo dhulka reer Falastiin. heshiiska uu Mohammed bin Said ku dhiirigeliyay madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa loogu magac daray heshiiskii qarniga waxaana ujeedka ugu weyn uu yahay in caasimadda Israa'iil loo aqoonsado Qudus. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV caawa naga inta